بسم الله دمان داوداش شرفت له الحين كسلان سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت سكديب ما أنتوا معنا جماعة مقال كان أما فيديو كان أنا يصدر الحين كله ذاي دونا موضوع قابل أو خصية بالشدين كاسو يغطى لك شيء حرنته وعي قلتي أخوان بعد السؤال إني صار وقعت وعي بالشدين الصوماليات هادو علي هذا موضوع مانتا إنه ذاك دونا وحلقة دونا موضوع وذكر إنسان طبعا وحي صوبون وماهن لكن صحة فافاسة أنا هذا دون وهذا دون هادو علي هذا موضوع سحوي هاي وحلي هذا مسوق أما أفكار خلاتي كلها كوربشن مسوقة ودباتو وين وبالشوين كوهبس قال هذا النظام الدولية دولة كسنة دولة أما بالشكل كسنة بالشدة معناها كم مسوقيات تبيكوها من البلدان تاي سعد ردت مسوقة حلي هذا وأن ماملكو حماده waxaa ka dhalay in macnaha musuq la sameeyo tusaale ahaan umadeena marka aad musuqa ama corruptionka aad weydiiso waxaa degdeg ugu soo dhacay maskaxdiisa qaybta waxaa la yidhahdaa xadista ama hanti dadweynaha la xado ama si toos ah loo xado ama si macnaha adeeg baan kugu sameynaa lagu xado oo lagu dhaco macnaha laakiin xaqiiqdu waxay tahay uu ka mugan yahay uuna ka ballaaran yahay tusaale ahaan mid ka mid ah kan ugu daran ee dadka aad u wada yaqaanaan waa midka la xiriira macnaha xatooyada hantida dadweynaha kaasoo dabcan aad ooga muuqda bulshooyinka musuqaas uu ku badan yahay horumar la-aantooda aad iyo aad looga dareemo taas waa midaas tan kaloo ayadana lagu sabeyn karo waxaa ka mid ah musuq inuu yeelan karo macnaha musuq dhanka maamulka ah maaliyadda iyo dhanka siyaasadaba culamada qaar ee bulshada ku takhasustay cilmiga bulshada waxay ku daraan inuu xitaa jiro musuq ama waxay dhahaan fasaad ijtimaaci xataa bulsho ahaan inuu bulsho dhexdeeda ka jiri karo waxa la yidhahdo musuq bulsho markastaba waxaan dul istaagi doonaa bal waxbaa ka dhihi doonaa kan ugu muhiimsan ee bulsho aad ku taqaano qaybta koowaad uu noqon doono waxaa weeye kan la xiriiro dhicista hanti dadweynaha dabcan saameyntiisu qofkaas oo kale wayna muuqanaysaa waxay ka muuqanaysaa horumarka waddankaas sababtoo ah qorshihii maaliyadeeda la dejiyey markii lagu fuli waayo mashaariicdii qaranka loogu talagalay in lagu fuliyo dabcan way ka muuqanaysaa tusaale ahaan wixii loogu talagalay in lagu bixiyo bulshada horumarinta bulshada sida waxbarashada caafimaadka ama dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka deegaameynta ama qurxinta magaalooyinka markii wixii loogu talagalay la lunsado way ka muuqanaysaa dhaqaale ahaan in hantidii loogu talagalay hawshaasi la musuq maasuqay si lacag ahaan loo dhacay macnaha ama loo xaday laakiin waxaa kaloo ayadii jiray mid la dhaho macnaha musuq dhanka maamulka ah waa wuxuu noqonayaa talada dalka halku rab ha la ekaado xafiisku rab ha noqdo in la geeyo ama loo dhiibo qof aan ku habboonayn qof aan ku habboonayn macnaha geynta la geynayo waxaa ka dhalanayo in wax sax ay kasoo bixi waayaan qof aan maamul ahaan u qalmi wuxuu noqon karaa qof aan mudnayn xilkan tusaale ahaan aqoontii ma lahan khibradii ma lahan wuxuu ku tegay arrimo macnaha saaxiibtinimo ama arrimo qoys ama wuxuu ku tegay arrimo hoosoo macnaha qofka markaas talada dadka u qaybinay la doonayay inuu si cadaalada dadka ugu qaybiyo baa wuxuu la jeclaysanaa qof macnaha ay saaxiib yihiin ama xigaal yihiin ama qof macnaha ay qaraab yihiin markaas waxaa la yidhahdaa waa musuq dhanka maamulka ah waxaa kaloo ayadana muhiim ah musuq uu ka dhici kara oo qeyb saddexaad iyada noqonayso musuq dhanka siyaasadda ah waxaa la yidhahdaa nidaamka dowladnimada marka laga sheekeynayo waxaa lagu saleeyaa sinaan ama wada lahaanshiyo in waxaa la wada leeyahay waxaanse loo wada yeesho waxay ku imaanaysaa in macnaha xagga siyaasadda loo sinaado ama xagga matalaadda heerka rabta ahaatee heerkeeda kala duwan
midka ugu hooseeya levelka ugu hooseeya laga soo bilaabo deegaanka ama dowladaha hoose laga soo bilaabo ilaa lagu yimaado meesha ugu sarreyso. matalaadda siyaasadda markii dadka ay wada yeelan waayaan waxaa yimaado waxaa la macnaha sinaan la-aan dhanka siyaasadda ah. taa waxaa ka dhashay in dad goynaha siyaasadda isku koobaan, maamulka dowladda isku koobaan, markaas ayada waxaa soo baxaya musuq dhanka siyaasadda. waxaa kaloo ayadani muhiim ah oo aan doonina bulshadena ku baraarujinaya waxay tahay musuq ujeedka dhanka bulshada ah. musuq dhanka bulshada wuxuu noqonayaa in loo sinaan waayo طبعا waa qayb kamid maamulka laakiin kheyraadka la wada lahaa. oo tusaale ahaan deegaanka waa lagu wada leeyahay, deegaanka waa lagu degan yahay, dad baa wada degan. qofka mas-uulka ka ah markuu horumar ka sameynaya deegaankan, haddii noqoto deegaamada guryo loo dhisayo kale, ama deegaankan adeeg bulsho loo qaybinayo sida isbitaalada, waxbarashada, iskuullada, waa in si siman loogu qaybiyaa. waa inaysan bulsho ama reer gooni ah aysan reerkan ka badsanin. taas waxaa ka dhalanaysa sinaan la-aanta bulshada, waana midda keento ama fududeysa mustaqbalka inay soo baxaan jabhado deegaankaasi ka dilaacaan, kuwaasoo ka gadooda ama macnaha isdareensiiyo in wixii xaqi u lahaayeen bulshahaan macnaha ay u sinaan la-aan macnaha dareemo, in wixii bulshahaan ay xaq u lahaayeen ka dheedhiyo dareemo in waxaysan xaq u lahaayeen la siinin ama la dudsiiyo. taasoo keento in macnaha jabhado hubeysan ay ka kacaan, dagaalamaan, ama dabcan noqoto in naftooda ayagana markay talada meesha tagaan, ama qof halkaas dulmanaha ama la dulmay kamid ah, qof ayaa kamid ah mustaqbalka markuu meesha yimaado asagana uu istusiyo wuxuu halka lagu sameeyey inuu sameeyo kor. taasoo ah in ay sheegay dadkii kale macnaha uu wixii duusiyo oo si cadaalad wax u qaybeen, markii deegaanka si sax uusan uwada gaarsiin dadkii, macnaha dadka uu kala sokaysiiso, qof uu soo dhigaysto qofna macnaha uu fogeysto. marka bulshadina waxaan kula daarmayaa in musuqa la dagaalankiisa ama si looga hortago inay kow ka bilaabanayso sinaanta qoyska, oo labada qof oo qoyska macnaha wakiilka madaxda ka ah, hooyada aabaha, sinaanta si diinteena amartay inay ciyaalkooda ka bilaabaan. sinaanta bulsha meeshaasay kasoo bilaabanaysaa, kadib dariskaada ku xogsanayo, kadib dariskaaga sokaa kugu sii xogsanayn, ilaa xaafadii, degmadii, ilaa gobolka lagu yimaado. in bulshadeena aysan badan madaxda xafiisyada joogto inay macnaha markay adeeg ka doonayaan, maadaama waxa adeega ay rabaan wax waajib macnaha ay leeyihiin ay tahay, inaysan macnaha u marin inay musuq ku bixiyaan, laaluush ay dhiibaan. yani qofka xafiiska jooga waa inay yidhahda waxaan xaq baan kugu leenahay, dastuurkeena baa noo ogol, wadaniyiin baan nahay, waxa inaan nasiisa ayagoona shilin bixin. taas waxay keenaysaa in qofka xafiiska jooga uusan ku dhiirin dadka inuu macnaha wax weydiiyo. laakiin markii qofka xoogaa deegaada waxba laguma qaban wax keen hadduu jeefka gacanta geliyo, macnaha waxay noqonaysaa yani musuqii ka bilaawda meesha levelka ugu hooseeyey, heerka ugu hooseeya ka bilaawda waxay noqonaysaa inuu tago ilaa meesha ugu sarreysa, levelka ugu sarreeya dalka macnaha sida madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama xildhibaanada ama golaha wasiirada inuu gaadha noqonaysaa. saa daraadeed bulshadeena waa inaan ku barbaarinaa ubadkeena markay yar yihiin, ama waxbarashada aasasigaba lagu baraa musuqa la dagaalanka dhanka bulshada la dagaalamo, oo qofka la baro qofkay dariska yihiin xuquuqda uu wada leeyahay, wada lahaanshaha, sinaanta, cadaaladda. xafiisyada dowladda markii la tagan waa in saas oo kale la tusiyo qofka mas-uulka inuu adeega yahay, uusan xaq u lahayn bulshada inuu baad ku weydiisto adeeg uu qabanayo. intaas ayaan kusoo guyaanadaya. aad baa mahadsantihiin.